Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabteeda channelkayga Nasra Carfaaye Cooking Channel. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay subscribe saaro gambaleelka furo si aad ula socotid cashir walba aan soo gelino una sii share garee asxaabtaada insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta channelka naga daawanaysa waa Nasra Carfaaye Cooking Channel. asxaabe maanta waxaa baran doonaa haddii alla idmo sida ugu fudud ee loo sameeyo sambuusiga. Sambuuskeenana wuxuu ahaan doonaa sambuus laga sameeyay hilib. waxaa ku dari doonaa labadan xab oo ku hooli doono bahalkan loogu talagalay karooto hoolka iyo labadan xab oo basal ah. insha Allah sambuusigeena marabo inuu nooga bato basasha sambuus hilib insha Allah. haddana waxaan gudagali doonaa hawsheena isla socod wanaagsan insha Allah. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe, like the video, share and comment insha Allah. la wadaagna asxaabtaada. soo dhawow markale inta asxaabe soo dhawaada markale asxaabe insha Allah. marka hore waxaan diyaarsan doonaa karootadeena. bismillah. hilibka markaad sidaas u qalajisid sameeyna qaandada kula celceli si dheecaanka si fiican uga baxo oo hadhow sambuuska ku noqdo sambuus dhexdiisa aad u qallalan tahay aad u macaan badan. hilibka sidaana ku soo dhameena oo isku soo laabanayna insha Allah. hilibkii oo noo soo qallalsame haddana waxaan ku darsan doonaa karootadii noo hoolneed iyo basashii noo jarjarneed.
intaas si fiican isku dhexgali. haddana waxaa kusoo darsan doonaa carfiskii. meeshaan waxaa ku heystaa maraq digaaga qudaarta ka samaysan. maraq digaaga haddii aad neceb tahay cusbo ku bedelo. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa xawaajiyaal isku dardaray. meeshaan waxaa kaloo ku heystaa filfil. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa liin dhanaan, jeex liin dhanaanta runtii cuntada aad ay u macaaneysaa, dhadhan gooni ay siisaa. kadib si wanaagsan isku dhexgeli intaan. dabkan iska gaabi, basashiisan biyo kaa dhalin. sambuus waxaa rabaa insha allah inuu noo noqdo dhexdiisa qalalan tahay, dhadhankiisuna aad u wanaagsan yahay. hadda qudaartan sambuuska waa diyaar. lama rabo inuu dabka ka bato sababtoo ay sambuuska hadhow isaga saliid lagu dubi doonaa. hadda waxaan sameynaynaa dabka ka daminaynaa insha allah. sidaan ayay diyaar noogu tahay qudaarteena aan ka samaysan lahayn sambuusiga. isku soo noqod wanaagsan asxaabteyda. hadartaan waxaa qasanaynaa foolyadii. meeshaan waxaa ku heystaa 2 koob oo koobkan ah, koobka shaaxa lagu cabo waaye, oo bur ah. 2 koob oo bur ah. biyaha si tartiib ah ugu shubo ilaa foolyadaada aad ka arkaysid inay sida adiga rabto ku wiiqato. si wanaagsan u xash cajiinka ama foolyada. waxyaabaha la sameynayo burka oo dhan aniga waxaa dhahaa cajiin bay amarkiis. cajiinna anaga waxaa u naqaanaa xamarkan reer muqdishaan leeyahay haddii aan ahan cajiinka laga qaso canjeerada. inuu gacanta kaaga dhigdhaya haddii aad aragtid waxyar bur ah ku biti. gacanta iga qabsan waya sameynaa soo dara. sidaan aan kusoo wadaa waa isku soo laabanayna insha allah. waxaa kor saareysaa xabadkii labaad. dhibaato malahan haddii uu kala dheer yahay gacanta iskula sin. saliid iskaga roonee si hadhow foolyada kugu kala foqfoqdo si dhaqsi ah.
كمرت أكتب soo qaadanaysaa midi si aad geesaha ugu sintid. inaan kala jarano. Bismillah. haddana fooliyada soo kululeen doonaa, waa isku soo laabaneynaa insha Allah. hagaag asxaabteeda, fooliyadii waa soo dhameysanay, waa soo kululeeyay. sidaan quruxda badan ayaa noogu soo baxday. waa ujeedaa siday soft u tahay, u qafiif u tahay, xitaa gacanteeda looga dhex arkaayo. ujeedaa hadeertaan waxaa sameysan doonaa sambuuskeena qaybtiisa kale, soo laalaaban doonaa insha Allah. sidoo kale meeshaan waxaa kusoo diyaarsaday burkii aan ku xiri lahay sambuuska amba koolo sida u taqaanid. intana waxaa kusoo diyaarsaday qudaartii sambuuska lagu dari lahaa. hadeertaana waxaa bilaaban doonaa sambuuskeena. si wanaagsan uga xir si hadhow saliida ee uga dhex gelin. sambuuska aad u waaweyn yahay, ilaa iyo 3 qaanada ku shubay hadda sida ujeedaan. arkaysan xeer hoos ugu celi. si wanaagsan u xir. kadibna waxaa sameynay burkii yaraa oo koolada uga dhigeyna marmari sambuuska, kadibna xir. laba xabaa idin tusin doonaa, sidaasaan kusoo dhameyn doonaa insha Allah. maraba muuqaalka inuu nagu dheeraado. sidaas u xir sambuuska si hadhow saliid ay kaaga dhex gelin. labadaas xabaa idin tusiye asxaabey. waa ujeedaan sambuuskeena siduu u qurux badan yahay. sidaan ayaan kusoo dhameyn doonaa insha Allah. isla socod wanaagsan. hagaag asxaabteeda, sambuuskii waa kana waa soo dhameeyay, isaga dhan waa soo duuduubay. hadeertaan waxaa sameynaynaa, waa duunaynaa insha Allah. nakeena dabka. isku soo noqod wanaagsan asxaabteeda. haddana waxaa duwanaynaa sambuuskeeni. saliidda way noo soo kululaatay. waxaa ku ridan doonaa xabadeeni koowaad ee sambuuska. waxaa ku xusuusinaa saliidda mar walbo iska kululeey si sambuuska dhexda aysan saliid kaaga gelin. haddana waxaa kusoo ridan
markaan ugu bislaado qaybtii hoose hadda xasminayna waa digidinayna. maraba sambuuska inuu iyo gubto waxaa uga bixin doonaa qaabkan kalarkan oo goldiga ah ama dahabiga. haddana sambuuskeena sidaan ayuu diyaar noogu yahay. okay asxaabteeda, sambuuski waa soo wada dhameynay. sidaan quruxda badan ayuu noogu soo baxay. waa ujeedaan. fadlan haddii aad ka heshay fiidiyogan like saar, asxaabtaada la sii wadaag. wixii fikrada iigu reeb qaybta hoose ee commentiga. maanta muuqaalkeena intaan ayuu ku egyahay. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga, waa walaashii Nasra Carfaaye oo idinkaga tegaysa kheyr iyo barwaaqo bashbash insha Allah.